kooxda Bayern in la ceeriyay Tuchel. Falanqeeyaal badan ayaa ku tilmaamay sababta ugu weyn ceerinta Tuchel inay ahayd in laga qaaday horyaalka Bundesliga. Ceebta ugu weyn kaliya ma aysan ahayn in koob laga qaado koox, ceebta ugu weyn waxay ahayd Bayer Leverkusen, laakiin ceebaha kale ee ugu waaweynaa waxay ahayd in Bayer la isugu maray home iyo away ama labadii kulan ay u bixiyeen kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen. Bayer oo laga reebay semifinalka koobka ugu qiimaha badan ee laga ciyaaro Yurub u arkayeen in aan lagu aamini karin koox sidan u weyn, misna koox haysata 6 jeer Champions League loona qiimeeyo inay ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn ee ka ciyaara Yurub, isagoo loo sababeeyay inuu ka yimid koox yar oo ka dhisan heerka labaad ee Ingiriiska, loona saf tababarayaal ah oo loo bixiyay magaca ah kuwa ugu fiican ee Yurub. Inta uu joogay kooxda, wuxuu ku guuleystay 2 horyaal, wuxuuna soo gaaray 8-maadka Champions League. Dhanka kale, Real Madrid waxaa ka tagay tababarihii hogaaminayay dhowrta sano. Ka tagistiisa Real Madrid waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee soo maray noloshiisa, kadib markii sanadkiisii ugu dambeeyay uu ka qaatay sanad aan caadi ahayn. Marka caawa maxaa laga filan karaa kooxda Real Madrid ee Bayern Munich? Waxaa la joogaa qalcadda Madrid, garoonka ay yaalaan koobabka ugu badan ee qaaday abid koox ciyaartay Champions League, kuwaasi oo ah 15 Champions League. Dabcan waa garoonka aad u weyn oo loo baqo kooxaha yimaada, inkastoo Madrid laga adkaaday kulankii Mallorca. Sidoo kale, caawa waxay fariin gaar u tahay in 2 tababare oo cusub ay isu baxayaan kadib kulmadii ay ciyaareen 2024 Thomas Tuchel iyo sidoo kale Carlo Ancelotti, tababaraha kooxda kubadda cagta Madrid. Sidoo kale, isagoo hadlaya Alvaro Arbeloa wuxuu yiri kaliya waxaynu leenahay hal ujeedo, taasoo ah inaan ku Ibrahim ayuu yiri Arbeloa. Waxaan ogahay in isagoo hogaamiye knock-out-ka. Sidoo kale, tababaruhu wuxuu ku hadlay kooxda Bayern Munich wuxuu yiri